waxaad ka xanaaqdo ii sheeg waxaad ka xanaaqdo adigana soo gudbo waxaad ka xanaaqdo waa qodobka tobnaad weeye waa muhiim meel ku qorto qodobka tobnaad qodobka tobnaad haddii aad xanaaqdo maxaa daawo kugu ah oon kugu dejiya waad xanaaqsama gabadhi baa waxay tidhi haddaan xanaaqo sariirtaan galaayo waan isduuduubaa waan seexdaa laylama hadlo sax daa ha isduuduubtee ha la hadline daa waxay tidhi haddaan xanaaqo naqaskaan iska sii daayaa waan qayliyaa adna waa inaad aamustaa markay islaantu xanaaqdo aamus dariishadaha soo xidh tiifiga dami carruurtii adiga beerbeer u seexda isdhegaysta islaantu ha qaylido mar xagga ha kuu dhaafto mar xagga ha kuu dhaafto afka abuura ka kiciso ayadaa marka dambe iska kaca ku dhihi leesh li'anna marka hore isku ogeydeen sooma waxay ku degtay waa inta laakiin dad maxaad la qaylaysaa ifur hal baan kugu furay ii dhammaystir saddexdaan kugu furay maxaa sugaysaan marka maba lays yaqaaneen ninkii baa wuxuu yidhi haddaan xanaaqo waan baxaayo raggaan la soo sheekaystaayo masaajidada iyo maqaaxyaan tagaayo hadhowta anigoo ubax ku wadaan ku imaanaya iyo shukulaato daa ninka iridda ha u istaagin ha soo carabaabi'ee daa warka ayaa samayn karaa waa ciddan waxaan fahamsan weeye laakiin ma garatay radda reereen waxay nooga dumayaan waa dadaan weli isbaranin weeye ayib qodobka labayo-labaatanaad ma tahay qof jecel nadaafadda jidhka dharka guriga iyo gogoshaba haddaan nadaafadda aan laisku waafaqin haddee guri yaabla ayaa lagu noolaanayaa qodobka 13aad kuweed ugu jeceshahay in la xidhiidhiyo ehelka iyo saaxiibbada yaad jeceshahay gurigaaga inay imaadaan saaxiibba ahaan marka laga hadlayo gabadhi u sii sheeg saaxiibbo badan baa guryo dumiyey guryo waxaan garanaynaa ay saaxiibbo dumiyeen li'anna lagama wada hadlin gabadhii saaxiibbay la socotaa uusan ninku jeclayn ninku wuxuu la socdaa saaxiibba ayna gabadhu jeclayn war ninkaa ma jecli qaar baa acazakumullah wax la sheega ma aha barnaamij ila tali la yidhahdoon isticmaalo ayaa waxaa in badan lay weyddiiyaa saaxiibtay ayaa ninkaygii iga shukaansatay haye saaxiibkay fiiri saaxiibka ninkayga saaxiibkii ayaa guriga iigu imaadoo wuu ii hunguriyeeyaa subxaan allah soo waxaa marka hore in bannaanka la marya maaha war gurigan yaa saaxiibkaoo soo gelaya waa kuma waa qodob asagana aad iyo aad muhiima weeyaan qodobka 14aad qaabkeed u jeclaan lahayd inuu arooskeennu u dhaco aroos aan laga wada hadlin waan ku jeclahay waan kaa helay arooskii baa la gaadhi mar alla markii arooska la gaadho waxay leedahay adeer anigu arooskay waxaan rabaa hotel in lagu qato maxaa la dhahaa maxay 5 star anigu waxaan rabaa adeerkay oo Canada degan iyo ayayda oo Ingiriiska degan iyo maxaa la yidhaha abtigay oo halkaa degan inay ka soo qayb galaan haye kooxdii muusikada iyo islaantii buraanburaysay iyo maalinta dhallinyarada iyo maalinta haweenka iyo maalinta siisagootinta ayaa meeqa kharash baa ku baxday ii sheega qodobkan waxaan kaga niqaashi doonaa galabta 6da galabnimo markii la gaadho barnaamij dhallinyarada loogu talagalay bas ah oo magaciisa la yidhaahdo dhallinyarada guurka maxaa ka hortaagan hadday isguursadeenna durba maxay isu furaan ayaan kaga niqaashi doonaa haddii alla yidhaahdo oon jeclay inaad si fiican aad nogala qayb qaadataan haye arooskeennu qaabkee u dhacayaa anigoon ku guursanay waa inaan ka heshiinaa haddaan ku arko inaad micyo dhaadheer leedahay waxaan ku leedahay abbaayo duurka gal mid yaroo aan isfahmaynaba imaanayse sax sooma ayib qodobka kale wuxuu leeyahay meherkaagu waa meeqa aye waxaa jira meher la yidhaahdo ii maqashii ma maqasheen ii maqashii ha la yidhaahdo magaaladan oslo la yidhaahdo gabadhi ugu meherka qaalisanayd weeye allahu akbar iigu dhawaaq kolba ima siin doonee laakiin kaamirada ha ii gasho facebookga ha lagu faafiyo in hablaayo intaa lagu meheriyey shaytaanku siduu ugu ciyaaray fiiri galabtan kaga hadli doona haddii alla yidhahdo qodobka 16aad yaad la socotaa oo saaxiibba la tahay aniga saaxiibbadaadaan raba inaan hadhowta kugu qiyaaso dadka aad saaxiibbada la tahay qodobka 17aad
waan ku jeclahay maxaa laga wadaa wallahi cajaa'ib way qodobkan in badan baan maqlaa waan ku jeclahay waan kaa helay beerkay xanuunaya dhiiggan kuu shubaya maxaa laga wadaa aye haddaan weydiiyo ninkaas odayga ah ninkaasaan sheegayaa ninka haddaan su-aasha weydiiyo mise ninkaasaan weydiiyaa maya kaasaan weydiinayaa xaaskaaga markaad leedahay waan ku jeclay maxaa ka wadaa gabadha inteeda guursanin aad leedahay waan ku jeclahay maxaa laga wadaa horta waa in las weydiiyaa war waan ku jeclahay waa in meel la saaraa huhaawey waan ku jeclahay waa in meel la saaraa idan su'aalahan oo dhan fiiriya waxay u baahan yihiin jawaab mar dhowna waxaa arki doontaan innagoo intaan weeb u samaynay oon su'aalahan jawaabo ku soo qornay qofku intuu jawaabahan galo su'aalahan uu qoro kadibna warqad kuu soo baxaysa oo ku dhahaysa adeer weli maa guursan kartidee dib ugu noqo koorsaa lagu siinayaa gabadha ordaysaale nin baan guursanayaa adeer horta bal shuruuddan soo buuxi nin kale horta waan guursanayo horta bal shuruuddan soo buuxi okay yaad la socotaa waan ku jeclahay maxaa laga wadaa qodobka 18aad haddii uu yimaado khilaaf sideed u xallin doontaa qaabkee goobtee xilligee waa muhiim jiddan wey malaa'ig isma guursanin waxay isguursadeen waa bashar caadi ah haddaba haddaan isguursanno khilaaf imaado waxaan rabaa inaan ogaado khilaafka saad u xallin doonto goobtaad u dooran doonto qolka jiifka wax laguma xalliyo qolka jiifka hoolo waaweyn oo kale u yaalla dadka qaar baa waxay ku xisaabtamaan qolka jiifka haddaay hadalka maxaad ii lahayd markaasaa hurdadii ninkii ka tegaysaa oo gabadhii ka tegaysaa markaasuu xagga isu gedinaya or qolka jiifka nidaam baa loogu talagalay dhalinyaro xaggee wax lagu xalliyaa fadhigaa lagu xalliyaa goobtee lagu xalliyaa xilligee la xalliyaa ma markaan xanaaqsanahay ma markaan shaqada ka soo galo ma markaan daallanahay ma markuu madaxii xanuunayo ma markay goormaa la xalliyaa saacaddee la xalliyaa meeshee lagu xalliyaa warkaas su'aalihii intaa la wey adeer ninka qoslayow shaqada arrida ku taallaa ka jiifso qodobka 19aad qaabkeed u fahansan tahay barbaarinta ubadka adeer carruur hadduu allana siiyo qaabkeed u fahansan tahay meeqa kitaab baa soo akhriday meeqa dawraad soo qaadatay meeqa muxaadaraad soo dhegaysatay horta ilmaan dhalayaa ma ahane horta ilmo in la barbaariyo maxaad u fahansan tahay qodobka 20aad dhaqaalaha reerka sideed u qorshayn doontaa mustaqbalka dhow iyo mustaqbalka dheerba adeer reerkani waa dawlad reerkan dawladda ah dhaqaalihiisu xagee ka soo gelayaa habeen dhoweed waxaa lay weydiinayey sheekhow waa ninaya xaas baan ku qabaa ameerika midna soomaaliyaan ku qabaa tii ameerika joogtay waxay leedahay waxba ha shaqaynina guriga noo joog adeer haddaadan shaqaynin maxaad qabanaysaa ma islaanta war annagaa wax aragnay hadda ka hor Soomaaliya xoolaha dumarka dhurwaabaa ka sheegtay Soomaalida maqal xoolaha dumarka dhurwaabaa ka calacalay dhurwaabaa neef ari qaaday islaantu markay artay dhurwaab waxa Allah waa kii neefkaygii cunay dhurwaabaa wuxuu yiri wallah haddaan xoolaha dumarka xoolaha ka aqoon lahaa maba cuneen adigana markaasaad doonaysaa inaad maxaa la yidhahdaa aad haweenka waxooda cunto war haweenka waxooda loo daayo oo hala shaqaysto waa muhiim qodobka marka qaabkee qodobka 20aad dhaqaalaha reerka sideed u qorshayn doontaa aan isku waafaqno qodobka 21aad mustaqbalka fog xagee jeclaan lahayd inaad ku noolaato adiga iyo xaaskaagaba maxaa mustaqbal noo ah waa qodobka 20aad weeye qodobka 22aad qalbiga halkan ii soo jeesta marka qalbiga ii soo jeesta wax yar ii soo jeesta qalbiga xaaskaagu dhash ninkaagu hadduu isxidho qalbiga ninkaagu ama gabarh yahay ama nin yahow qalbiga xaaskaaga hadduu isxidho maxaa lagu furaa meeqa furaad haysataa yaa meeqa furaa qalbi isxidhay in lagu furo meeqaad u haysataa adeeradaa su'aasha lagaa rabaa aye qalbiga waa isxidhay furaan u baahanay marka haddaadan furan aqoonin qalbiga adeer iska lugee haddee iska lugee qalbi isxidhay wixii lagu furi lahaa waa in la helo weeyaan qodobka 23aad
maxaa kobciya allah 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 kan waa cajaa'ib dhagaysta kan indhaha isku qabtaan mar caadi ma aha kan khatar weeye wuxuu yidhi maxaa kobciya jacaylka kana dhiga beer qurux badan iyo biyaha badda oo kale yaa salaam haye waxaa suuraysataa beer qurux badan iyo biyaha badda jacayl ahoo adiga xaggaa ka soo burqanaya haye weli suuqa lagu gado ma tagtay biyaha jacaylka lagu waraabiyo weli ma soo iibsi jacaylka maxaa lagu waraabiyaa dhulka maxaa waraabiya biyo soo maaha haye jacaylka maxaa waraabiya adu ma is weydiisa jacaylka in la waraabiyo malab ah ya jacaylka maxaa waraabiya waa inaad biyaha noocaas raadisaa qodobka 24aad aniga iyo adiga maxaan isku raacsannahay oo naga dhaxeeya horta su'aal aniga adiga maxaa naga dhaxeeya ayuutan wada gelinaa soo moogid shaloongan wada gelinaa sooma maxaa naga dhaxeeya wax walba soo nagama dhaxayn karo haddee waad yaabaysaan wax naga dhaxeeya haddaa idiin sheego xataa candhuufta naga dhaxaysa allah nabigu intuu biyo cabo oo saa u wareejiyo ay caaisho saa u wareejiso ayaa meeshuu nabigu ka kabaday ka kaban jirta allah keligaa waad dhali weyday anna keligay waan dhali waayey shahwadaa naga dhaxaysaa dee ma waxa naga dhaxaynin baa jira adi keligaa ma dhali kartaa anigu keliga ma dhali karaa saan shahwada iskugu darsannay wax walbaa nooga dhaxeeya idan qodobka 24aad aniga iyo adiga maxaan isku darsannaa oo naga dhaxeeya qodobka 25aad reerka maamulkiisa yaa xaq u leh kan dhagaha u fura reerka maamulkiisa yaa xaq u leh reerka yaa madaxweyne ka ah war heedhaha gaariga yaa wadaya tareenka yaa wadaya diyaaradda yaa wadaya ma gabadhaa wada mise ninkaa wada mise waan wada wadnaa bal shaydaanka iska naarorta soo saas maaha idan waa su'aal qaangaadha weeye su'aashaan waa qaangaadh la socda 15 sanay dhaaftay reerka maamulkiisa yaa xaq u leh ii soo sheeg wareedhe gabadha intaana shukaansanayaba haddaanan arrintanana ka wada hadlin haddii hadhowta maxaa dhacaya ya waad isiin doonaa waxaasoo waa ka niqaashi doontaan insha allah qodobka 26aad wada tashiga lamaanaha maxaa laga wadaa aan wada tashanno maxaa laga wadaa aan wada tashanno ayib aan wada tashanno maxaa laga wadaa yaa ka jawaabi kara aan wada tashanno maxaa laga wadaa waa in la yaqaano sidii loo wada tashan lahaa reeraheenna dhibaatada ugu weyn waa maxay fannu idaarati alkhilaaf baana garanayn khilaaf hadduu dhaco see loo maamulaa khilaaf hadduu dhaco see loo maareeyaa soomaali o dhan baa garan la sooma soomaali o dhan baa hadda garan la khilaaf baa dhacay soomaha war seen u maaraynaa xataa waa la garan la'yahay qodobka 26aad qodobka 27aad haddii ay musiibo dhacdo qaabkeed oo la dhaqmi lahayd abaar baa dhacday colaad baa dhacday xanuun baa dhacay imtixaan baa dhacay sideed u maarayn lahayd qodobka 28aad qodobka waa muhiima dhegaysta albaabka markaan ka soo galo seedii qaabili lahayd haye wejigee hadalkee ficilkee ayaad ii qaabil lahayd ninka guriga soo galayna wejigiisu waa noocee markuu guriga soo gelayo oo qodob muhiima wey qodobka 29aad marti iyo mudane sideed u maamuli doontaa marti waa dadka caadiga mudanahuna waa dadka qaraabada siiya maalan sideed u maamuli doontaan marti iyo mudane qodobka 30aad ballanta kowdhe cadaaladda xuquuqda runta iyo dareenka mas'uuliyadeed maxaad u taqaanaa waxaan rabaa inaan ogaado ballan maxaad u taqaan cadaalad maxaad u taqaan xuquuq maxaad u taqaan run maxaad u taqaan mas'uuliyad maxaad u taqaan labada qof ayagoon isguursanin waa inay masaa'ilka imtixaan ay ku galaan si ay go'aan oga gaadhaan ama ninku go'aan oga gaari karo gabadhan ma tii kugu habboonayd baa wiilkani ma kii kugu habboonaabaa dhallinyaro mila socotaan si fiican su'aalahan waa muhiim waan sheegay qofka raba haddaan siinayaa laakiin ka soo shaqee inaad ka soo shaqaysaa lagaa doonayaa qodobka 31aad ma tahay qofkii qof
wixii loo geysto aan iloobin cuqdadlow miyaa tahay waad aragteen hadda reer 30 sano isqabay baad arrintooda gelaysaa fiiriya reer 30 sano isqabay ayaa arrintooda gelaysaa markaasay leedahay shabadaan waagaan deganayn goorma ahayd waayo wax laga soo tegey ayay ku leedahay waxa ninkiina wuxuu leeyahay hadalkeed waagaa i tiri dikru ljafa bacda safa jafa waa sidaas weeye qodobka 32 sirta guriga noocadu taqaanaa sirta guriga noocadu taqaan sirta guriga ma la fahmo culumada Allah inteed u taqaanaa laakiin annaga sirta guriga waxaan u naqaanaa maalan hadal la bixiyo Soomaha maya inta kaliya maaha haddaan arko ninkii oo meelaha la iskugu imaado ku daahaya oo jecel inuusan gurigiisa aadin ninkaas sir buu bixiyey sirtuu bixiyey waa maxay guriga kuma faraxsana islaanta inuu ka seexato rabaa islaantu markay seexato inuu guriga soo galo rabaa saas ma sirta siyaalo badan baa loo bixiyaa sirta guriga noocadu taqaan qodobka 33aad ma ii sharxi kartaa tiirarka uu ku taagan yahay reerka wanaagsan reer wanaagsan baa jira meeqa tiir buu ku taagan yahay ii soo sheeg bal islaamku meeqa tiir buu leeyahay soo shan ma laha soo islaamku 5 tiir kuma taagno su'aal guri wanaagsan meeqa tiir buu u baahan yahay haddaadan ila aqoonin inta tiira gurigu ku taagan yahay seen u dhisanaynaa guri baad rabtaa inaad dhisato intaasoo tiir ka maqan yihiin oo dumaya marka على طول لكم كل عيال قضبك صدن أفراد هدان كلق قضبك صدن إيو أفراد هدي مش كده يا قضبك بس هو سكودر أصلا مرة عيال أوكي قضبك صدن أفراد هدان كلق جورسدو أنا كتشعل ما حاسمين لهيد هذا أنا كتشعل معنا إلى ذا يجو هواك وحيو فهمان هبل واق جورسدو وين دعي ما يتاكم الله يو أنا كتشعل هدان كلق جورسدو ما حاسمين لهيد أدون جورسين كلا سو هذا هو مهم أنا قلت جورسين من أرنت أمل إسرائيل النبي الله تبارك وتعالى قلب كصدن يشانات رالي مكتهاي إن يحاسك أقول شقيسته أما وحبر شذا سي وضته إن عليك أنفعي سوما سؤاله آد بأفر بديهين إلا وحنكو ختمة يا هدان قلب كصدن يلحاد هدان كاد البضو inaad u soo guurto magaalada ama wadanka aan deganahay maxaad lihi lahayd ana wadanka aan deganahay qodobka 37 waa idin sheegay waa qodobka ugu dambeeyay mid ka horeeyay 37 hadaa yiri Soomaha waa 38 طيب qodobka 17 waxbarashada dhanka diinta iyo maadiga halkeed kala maraysaan maxaa taqaanaa xagga cilmigaaga qodobka 38aad ma jeceshahay wax akhriska hadduu qofku waxba aqriin sidee wax loo horumarin karaa qodobka 39aad maxaa u dhaxeeya qabiil iyo qabaliyad keedsa ku dhaqantaa allah yaani hadduu ninku labada kala garanaynin oo nin uu qabiil ka buuxo gabadhii uu gacanta u galo ama gabadh reerkoodaba haddii la soo qaado ayada dhanba reerka way isdilayaan gabagabadii gunaanadkii iyo gabagabadii fiiro gaar ah ugu dambayntii waxaan ilaahay kaaga baryaa qof walba ka kale ku leh inuu ku fududeeyo su'aalahan jawaabtooda waxaana diyaar kuula ah insha Allah inaan kaaga jawaabo wixii aad soo weydiiso wada shaqayn wacan wassalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakatuh